بسم الله الرحمن الرحيم waxaan shirkan jaraa'id u qabanay inaan bulshada reer Jubbaland iyo Soomaaliyeedba la socodsiino wixii maanta ka dhacay magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarka Jubbaland oo dad badan ay provocation ka sameeyeen wariyaal badan ay wax ka qoreen waxa maanta magaalada imanayay wafdi ka socda dowladda Mareykanka safiirkii Soomaaliya u fadhiyay iyo generaalkii ciidamada Africom haystay Stephen J Townsend waxaa dhacday in ay dowladda federaalku ay ka shaqaysay in Cabdinaasir Seeraar iyo xidig ay abuuraan in ay qas iyo qalalaasa geliyaan imaatinka safiirka iyo generaalka arrintaasi xogteeda shalayba waa la helay waana laga digtoonaa in ay qalalaasa magaalada geliyaan checkpointiya ayaa areadooda laga sameeyey checkpointi hore u jiray wuu jiraa kuwo kale aagana waa loo sameeyey marka meeshaasi isku dhac ciidanka ay ku sameeyeen oo ay xabado kusoo rideen wax dhimasho iyo wax dhaawac midna ma jiro alxamdulilah si nadiifa ayay ku istaagtay waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheeganay ummadda reer Jubbaland iyo caalamkaba aan ogeysiinayna in muddo 6 bilood aan u adkeysanaynay ragaasi iyagu u adeega dowladda federaalka maskaxdooda iyo aaraadooda ku socda wixii intaa ka dambeeyana aanan u adkeysan doonin wixii ka soo baxana ay iyagu ka jawaabi doonaan dowladda federaalku mas'uuliyadda ay qaadi doonto intaasi waa NFSNF wax ka dambeeya oo dowladda Jubbaland ay sugi doonto ma jiro beesha caalamka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa intii aan sulx ku xallin karnay oo aan dhaqan iyo maxaa la yiraahdaa aqoonyahan iyo cid walba iyo shuyuukhba u adeegsan karnay waan u adeegsanay intaa ka badan inay qas iyo qalalaasa Jubbaland ka sii ridaan intii lacag loo soo diro ma qaadanayno mana sii socon doonto waxaan kaloo rabay inaan idinla socodsiiyo wafdigii yimid si fiican buu ku yimid si nabadu ku yimid shirkiina way galeen safiirka Donald iyo Moto ayaa soo horeeyay madaxweynaha iyo wasiiradii isagii shirki way dhacay si fiican buu ku dhacay arrimaha laga wada hadlayeen waxay ahaayeen arrimaha amniga xaaladda Jubbaland hadda ay ku sugan tahay arrimaha gada ka socda iyo qaabka loo wada maareyn lahaa si fiican ayuuna ku dhammaaday waxaa ku soo gaaray generaalkii ciidanka Africom General Stephen J Townsend oo isna si fiican loogu soo dhaweeyay meesha oo shirka ay wada galeen madaxweynaha wuxuuna ku dhammaaday si fiican arrimaha ugu weyn ee laga hadlayayna waxay ahayn arrimaha amniga iyo kuwii dagaalka ee lagula jiray shabaabka oo iyagana la rabay in si fiican kor loogu sii qaado ciidamada Mareykanka waad la socotaan ciidanka Jubbaland iyo ciidanka Amison iyo kuwa SNA-ba inay la howlgalaan oo ay ka caawiyaan dhinacyo badan marka waxaa la qoondeynayay in howlgallo adag la sameeyo arrimahaasuna u yimid jananku si fiican baana lasula afgartay si nabadayna ku noqdeen waxaan idinla socodsiinaynaa wixii soo kordha waadna mahadsantihiin